kusoo dhawaada channelkayga markale anigoo ah Faadumo. I'm back. Hadda meeshaan ku cusub tahay kusoo dhawaad, hadda hore ugu jirtana aad iyo aad ugu soo dhawaad insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo. Maanta waxaa noo dhameystirayaa sheekadii laba bari min saddex bari ka hor aan kasoo sheekay. I'm sorry, waa iska mashquule, iga raali naqda. Waad ogtihiin qaf ilma haysto, haddana ilmihii iskool ma jiro, guriga lagu wada xiran yahay. maxaa la dhahay ciida soo dhow, you know, macmacaan sameeyo ma badhahay harta ani macmacaan si loo sameeyo buskud waxaas ma aqaani, laakiin hooyaday ii soo sameysay, Ilaahay khayr ha siiyo. guriga le, you know, waa iska mashquulsanaa labadan bari iyo dulqaata insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo. maanta waxaan oo dhameystirayaa sheekadii aan ka sheekeynay daraad oo gabadhii Soomaaliyeed nala soo wadaagtay oo la xumeeyay, xumaan la iska dheh. sheekada waxay noo mareysay haduu Ilaahay yiraahdo, waxay noo mareysay sheekada markii gabadhan ay ugu tagtay gabadhi kale gurigeeda ay ku gargaraacday ee dhahday ninkaan iska soo bixi. ma xasuusatiin? gabadhi waxay dhahday walaalay dhageyso, ana ilma ii hurdaya meeshaan, ilmo ayaa ii jiifo, adiga ninkaan banaanka oolka horeba iska hesheen, banaanka markuu u soo baxo ku sug, because ninkii wuu soo bixi waayay, wuu cabsooday, wuxuu isdhahaa umaleynaa naagaha ama istagaal as inaa la garaacay ahayd. ani ahaantee ninka la garaaci lahaa, naagtadoo maba dhihi lahaanba, because naagtan waxay kala og tahay malaa sida adi been lagugu sheegaa, maskiinta been lagu sheegaa. So if you ever hadaa weligaaga ogaatid inaa ninkaaga naag kula khoomis, naag kula shukaansanaa, please naagtadoo ha aadin, ha ataagareynin ninkaaga le umiida marka guriga imaado. Anyways, gabadhi waxay dhahday gabadhi waxay ugu dhahday please walaala ilma ay hurdayaan, ninka banaankiisa ku sug. Okay aan heedaa, waan soo baxay dhahday, waan iska soo baxay dhahday, because marabin ay dhahday inaa booliis la igu waco gurigadoo waan joogay. waan baxay dhahday gurigeyga iskaaga naqday, gurigeyga markaa ku naqday dhahday ninkaan dhahday waan wacaa subaxdii aan sugay dhahday, ma wicin dhahday subaxdii aan sugay, subaxdii dhahday ninkaan maba imaanay. olkor subaxdii imaan jiray, remember subaxdii maba imaanin dhahday. waan wacaa dhahday, telefoonkiisa blogga la isaaray dhahday, telefoon kale aan ka wacay dhahday, ninka ala idhaa telefoonka dhanba wuu damiyay dhahday, because nin asaba buug ku jiro waaye dhahday. naagti kale Allahu yaclam asi naagti kale waxay isla marooyin markaas. bas markaas waxaan dhahay waan wacay dhahday adig ninkii dhahday muddo isbuuc kaamil hadalkiisa ma maqlin, telefoon ima soo dirin, wiilkiisa ma soo raadsanin dhahday, wiilkiisa ma soo raadsanin, wax uu sameeyay ma laha dhahday. isbuuci labaad la galay dhahday. okay ninkaan waxay dhahday dadkiisa ma aqaani dhahday, dadkiisa ma aqaani. wuxuu dhihi jiray dadkii isteedada ma degno, isteedadaas kale degan yihiin oo dhihi jiray dadkiisa ma aqaani dhahday, meelaan wax u raacday ma kasaayo. marka dambe waxaan baan baxay dhahday, masaajidkaan tagay, masaajidka culimada joogta, sheekha meesha wadaadka ka ahaa oo ka aadamaaya, masaajidkaan u sheegay dhahday sheekadaas ay haysato, ninkaan laba mid le waay, mis ha iga soo garbaxo oo wuxuu waxaa dhan u sameeyay ha ii sheego, maya maho madaxeega ha isiiyo, ha iska keefuro, ma barabiba aan ku dhahay dhahday. bas wadaadadu waxay dhaheen haye magaciisana sii, telefoon numberkiisana sii, anakaa insha Allah ka war dooneyno, adi iska baxaa lay dhahday gurigaaga iska tag. bas waan soo baxay dhahday, gurigeyga kusoo noqday. isbuuc kale dhahday wadaadadii aan sugaayay dhahday. markii isbuuci kale dhamaaday oo isoo wacay, haye see tahay war sidaa ahay wax kaama galine, maxaa naga damacsan tahay aan dhahay dhahday, maxaa iga damacsan tahay, maxaan kaa damac ku jeclahay, waan ku rabaa, naagteeyaa tahay, naagtaada ma ihiye, mana ku rabeeyaan dhahay dhahday, been loo waa tahay oo khiyaano loo ahe, nolosheeda dhanaan ku ciyaarta, ilaahay cunugaana isiiyaan ku mahadinaa ma ogiye, adigay dhahday faa'iido aad leedahay ma jirto, iska keefur furo ma ogiye, wax kale ma rabeeyaan dhahay dhahday. oo iga diiday telefoonkii aan ku damiyay dhahday. waxaan rabay dhahday inaan ogaado naagti kale asaga waxay isla mareen. waxaan sameeyay dhahday gabar aan raadiyay dhahday oo gabar kala taqaano oo naagta taqaano. gabadhiyaa la wareystay, gabadhiyaa marka sheegtay waxay dhahday si naagta isku kacsan yihiin, ninka guriga waa laga soo buriyay, gurigaana ma haysta kana ma haysta, laba dhexda ku jiraa, laba dhexda ayuu ku jiraa ninkii, daduu nimanoo la joogaa. waxay dhahday isbuuc kale aan sugay dhahday, isbuuci kale markaan sugay dhahday oo maalin walba waan wacay dhahday, maalin walba waan wacaa, mar walba waan ku buuqaa, because waxay dhahday ma rabiye dhahday inaan ani oo sheekadan tartiib ugu haray dhahday, mar walba waan wacay dhahday. alaa itixaal marka saa ugu buuqaayay dhahday. marka dambe wuu ismadaxeeyay iska kaysiye, meeshaan ku kala tagnay. waxaan dhahay dhageyso
aniga child support kuma gelinahay maxkamo kuma geenahay laakiin cunugaaga ilaahay ha ku tuso inaa wax siisatid oo biilkiis meel aa u saartid markii hore hayuu igu dhahday markii dambe dhahday waaba ninkii dhahday waaba la waayay haddana telefoonkiis wuu bedeshtay miraqdiisa meel aan ku sheega ma laha naagtadoo gurigeed inaan taga ma ka raadin kari child support aan geliyay dhahday because waa u sheegay dhahday markii hore waxaan dhahday ma rabo inaan child support ku geliyo sida soomaalinimo arrintaan iskula xaliisano ilmahayga gadaa ka qeylinaya hoosay joogaa tv fiirsanaya marka waxaan dhahday saasaan rabay dhahday soomaalinimo inaan u dhamaysana saa diiday dhahday maxkamadaan geeyay dhahday child support waa lay siiyay dhahday alxamdulilah wiilkaygaan korsadaaye dhahday waan shaqaystaaye dhahday gurigayga iska deganahay dhahday alxamdulilah dhahday maanta haddaan joogi lahay dhahday soomaali oo wadankii aan joogi lahay oo ninkaan saan ii xumeyn lahaaye dhahday maxaan sameyn lahay oo biilna ima soo diri lahayn wax sharci wadanka sharci oo kaaga qaadayna biilkii ma lahee dhahday alxamdulilah waxaan ku mahadinaya dhahday harto asoo isoo wade oo inta i keenay aqligeygana ku imaaday fahmi marka gabadhi sidii wallahi badanaa dumarkeena Soomaaliyeed hadaa ninka iyo naagta markay kala tagaan nimankeena waxay u badan yihiin kulli kuma dhahay laakiin waa u badan yihiin wallahi ay ka taw is og yihiin waxay u badan yihiin naagta markay kala tagaan oo naagta ninka calafkooda uu dhamaado inay cunugooda shilin ay siinin ani hataa way igu dhacday wiilkayga aabihiisa shilin iyo kuma itaano wax uu ku sheegto hal mar miyaan laba mar miyaan ma aqaan oo lacag dugsi ka dhiibay wax kale uu ku sheegto ma laha nin ficiisa u korinaayo ma fahmaysiin marka dhib maba lahaataba walaalayaalo markaa naagahan iyo nimankan ay kala tagaan ee calafkooda u dhamaadaan please awlaadaada wax siiso ha ku dhibin waa dhibteen wallahi billahi taala waa dhibteen dumarka Soomaaliyeed waa dhibteen waa rafaadiseen 80% waa single mother oo ilmo jiideys oo lagu biideeni oo la fiirineyni oo naagti markaas la aroos ilmaheeda la aadaya how many single mother ani aqaana oo like aqoon aan u leeyahay mise kor aan ka aqaana oo masaakiinta ay kala dugsi u wadaan ay kala iskool geynaa ay kala timo u soo jaraan ay kala wax kasta u sameynayaan حرام عليكم والله بالله waxyaalaha qaarkiis wax loo adkeysan kara ma aha naagta ilmaha adiga ay ku dhashay please awlaadaada wax siiso war awlaadaada ogaaw waxa idinka dhaacsan mise ka dhaacsan nimanka qaarkood kulli ma dhahay wallahi qaar fiican way jiraan abooyin fiican oo ma sha Allah ahna way jiraan ina credit la siiyo waay oo ilmahooda ogaanayaan oo wax walba u sameeysanayaan laakiin waxa ka badan oo ilmahooda dayacaayo awlaadaada wax siiso waxa ka dhacsan hadaa naagtan wax aasiisid ninay siinay mis ayda ku baashaalaysa cunugaaga korinoosa cunugaaga haysa so wax si ayda hataa wax siinay cunugaaga le ogaaw cunugaaga wac ilmahaaga la hadal ilmahaaga xariiri ilmahaaga weekendiga u tag ka soo wado laakiin naagta hadaa furtid cunugaagana ma furte cunuga adigu kugu abtirsanaa hadaa tahay hooyo single mother janaalkayga ku jirtid aad ku support gareynaya hooyo fiican tahay hooyo qurux badan tahay hooyo wanaagsan tahay anaga ilmaheena anaga korsano anaga dhaxda u xirano ilaahay subxaanahu qaadir hada wuxuu naga dhigay dumarkeena Soomaaliyaaga karti leh way yar tahay 1 2 3 4 waa inta ilmahooda dayacayaan badana ilmaheena waa nuula dayaca anaga korsano dibna kuma qabno marka walaalayaal oo qaaliga igu hada hooyo single mother tahay hore u soco you're doing very good job shaqo fiican qabanaysa awlaadaada korso kuwaasa barita subxaana qaadir kuwaasa bari insha Allah ilaahay subxaana qaadir ku xakaaga dhigaya boqorad iyo boqor kuwaasa insha Allah garabkaaga inta istaagayaan nin waxa aga baahan tahay malaha kii oo awlaadaada wax kugu siin waayeen hada wadan sharci leh aad joogtid gili child support gili ha kaaga soo qaado dawladda because ay ka murama inay wax ilmahood siiyaan hadii aad joogtidna wadankii Soomaalina aad tahay hooyo iska rafaadsan hooyo